بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyaro farxadda iyo waji furnaantayda ka muuqataay waa arrin aad iyo aad dhiirigelin u leh dhalinyaro meel kastoo joogtana waa sidaas. waxaan leeyahay hambalyo macallinka Soomaaliyeed meel kastoo uu ka joogo dalka. waxaan leeyahay hambalyo, waa maalintii macallinka, waa maalin weyn oo runtii taariikhna leh xusuusna la waaye. kumanaanka arday ee maanta meeshaan isugu timiday macallimiintoodii iyo kumanaanka kale boqolaalka kun ee kale ee maxaan ku raad dalka ku baahsan ee meel kasta joogtaay maanta waa maalin farxadeed, waa maalintoodii, waa maalintii xafladda lagu xusayo macallinka Soomaaliyeed. waxaan leenahay macallinka hambalyo meel kasta uu joogo. macallinka muhiimadda uu leeyahay oo wada garanaysaan. dhalinyaroy intiina i hortaagan hadda saacaddaas ee garoonka istaadium Muqdisho joogta, macallimiintii waa idinka, wasiiradii berrina waa idinka, madaxweynihii berrina adinkoo idinku dhex jira. muhiimadda aad leedihiin inaad saas u ogaatiin waaye, sida aad dalkan iyo dadkiisa aad muhiim ugu tihiin dhalinyaro. macallinka marka waxaan leeyahay muhiimaddiisa aan siino, xushmad iyo karaamo ayuu nooga baahan yahay, inaan xurmayno nooga baahan yahay. xoolo badan oon siina ma haysanno, laakiin inaan weynayno macallinku inuu dadka qofka ugu qiimaha badan dalka Soomaaliya, dawladda Soomaaliya dadka ku dhex jiraayo macallinka iyo askariga ugu qiimo badan. horta labada mujaahid ee jihaadka noloshooda dhan ku jiraahe waa askariga Soomaaliyeed iyo macallinka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. sidaas daraaddeed ardada dardaaranka ugu weyn oo waxay tahay in ay macallimiintooda ixtiraamaan, ka dambeeyaan, dhegaystaan. ma aha laba lagu daray afar bas inay ka bartaan akhlaaqiyaadka iyo edabta iyo maxaan ku dhaqanka suuban iyo berri markuu weynaado mas-uuliyadda u noqon lahay inay ka bartaan waay. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ballan qaaday 10 kun oo macallin in ay ku soo biirinayso bahda waxbarashada. 10 kun oo macallin 6 kun oo ka mid ah ayaa hadda shaqada ku jirta. wasaaradda xukuumadda guud ahaan oo Prime Ministerku ugu weyn yahay iyo golihiisa wasiirada, wasiirka iyo hogaamiyaha wasiiradiisa waa in si degdeg ah loo dhammaystiraa tirada macallimiinta aan ballan qaadnay oo dugsiyadoodiina loo diyaariyaa. xarumaha tababarka macallimiinta waa inay buuxsamaan
ee ku yaalla dalka qaybihiisa kala duwan oo dhan macallinkii aan tababarnayn ee fursad aan u helin in uu helo fursad tababarna wasaaradda waxaan farayaa in fursad tababar oo lacag la'aana la siiyo dalka iyo dibaddiisaba meeshii fursad laga sii kara macallinka Soomaaliyeed in la siiyo kuwa wasaaraddu ay tababartayna tababarka sii sarreeya in la siiyo sidaas daraaddeed kuma filna 10 kun oo macallin kuma filna laakiin waa bilow haddii term kasta iyo sanad kasta aan intaasoo macallin ku soo kordhino waan gaaraynaa maalin macallimiin ugu filan aan yeelano waana yeelanaynaa iskuulaadka waa dhisaynaa tiradooda waa badinaynaa korontaa loo yeelayaa biyaa loo yeelayaa haddii alla yidhaah ardayga iskuulka intuu joogo inuu qada cunaa laga shaqaynayaayoo dowladdu ku mashquulsan tahay intaasoo wanaag ah Soomaaliya inay horumarto ardayda Soomaaliyeed jawi fiican oo ardayda la midka ah caalamka horumaray ku nool ay ku nool yihiin ay wax ku bartaan inay ku noolaadaan ay wax ku bartaan aan rabnaa haddii alla yidhaah taageero weligiine waa mahadsantihiin farxaddiinna iyo raynraynta aad wadaan waa wax aad iyo aad u weyn waxaan leeyahay macallinka Soomaaliyeedna intaasaa xurmo iyo deeqba ugu filan in la ixtiraamaayo ardaydiisii bannaanka u taagan tahay weynaynayso macallinkana intaasaa ugu filanba wax walbaana kala weyn dhalinyaro waxaan leeyahay macallinka Soomaaliyeed ha noolaado macallinka Soomaaliyeed ha noolaado macallinka Soomaaliyeed ha sharafaysnaado macallinka Soomaaliyeed karaamaha u sanaato guulaysta adii kale sharaf yeeshay waa mahadsantihiin